walaalayaal kusoo dhawaada channelkeena caafimaadka bulshada oo mar walba kala socotaan waxyaabo ku saabsan caafimaadkeena iyo caafimaadka bulshadaba insha Allah mar walba waxa halkan idin kala socodsiiyo aniga waa Marin Axmed Aadan maanta waxa ka hadli doonaa cudurkii coronavirus oo adduunka zaid u saameeyay cudurkan coronavirus dhibaatadiisu leeyahay wadamada caafimaadka loo aadi jiray iyo wadamadii hormaray waa ka qaylinaya marka cudurkan waxa waaye daawadiisu weli ma soo bixin laakiin ka hortag buu leeyahay waxa cudurkan wuxuu ka yimaaday horta wuxuu xayawaanada ku dhici jiray dadkuna soo faafay waana virus cusub oo weli adduunka lagu arkin cudurkan marka qofku markuu ku dhaco ilaa markuu calaamadaha muujiyo maalinta koowaad cudurku ku dhaco ilaa 14 bil waxa laga yaabaa inay dadka qaar calaamadaha cudurka aysan soo muujinin halka qaarna ay maalmaha ugu horeeya laga dareemo marka cudurkan wuxuu leeyahay sababaha waxa waaye cudurkan dad waxa jira vulnerable oo u nugul sida dadka yaryarka oo 2 sano ka yar dadka qaba dadka waaweynka oo age-ka ah iyo dadka medical condition-ka qaba sida dadka qaba asmada ama neefta cudurka loo yaqaano dadka wadnaha ka jiran dadka qaba cudurrada wadnaha ku dhaca iyo dadka qaba sonkorowga iyo dhiig karka iyo cudurro badan oo dadka qabaan haddii ku dhacaan cudurkan waxa laga yaabaa in dadkaas uu faafo ama ay u dhintaan ama waxyaabo kale uu sababo marka cudurkan waxa lagu gartaa calaamadihiisa waxa kamid ah qufac daran hindhiso badan oo zaid ah qandho ama madax xanuun jirka qofka daal uu ka dareemo neefta qofka ku dhigta iyo dhuunta qofka xanuunta waa calaamadaha kamid ah cudurkan marka sidee looga hortagi karaa waxa looga hortagi karaa in mar walba gacmahaaga dhaqdo saabuun iyo ku dhaqdo iyo ama alcohol ku dhaqdo waxa kale oo uga hortagi kartaa cudurka inay yareyso taabashada sanka ama afka iyo indhaha gacmaha wasakhan mar walba inaad isku dayin inaad taabatid wajigaaga ama afka sanka especially meelahaas inaad taaban gacmaha wasakha inaad afkaaga ku dabooshid ama marka hindhisaysid tissue-gaasna qashin ku ridid iyo waxa cudurka kale oo looga hortagi karaa in mar walba gacmahaaga dhaqdid oo ku dhaqday alcoholaas waxa kale oo uga hortagi kartaa cudurkan alaabaha iska clean gareysid oo qof uu taabtay waxa kale cudurkan uga hortagi kartaa in gurigaaga mar walba joogtid badan tahay ilaaha naga badbaadiyo cudurkan daawadiisa weli ma soo bixin laakiin ka hortag qof walba inuu ka hortago cudurkan baa fiican si mataqaana dadka kale aysan u soo gaarin marka cudurkan waxa kale uga hortagi kartaa marka dadka cudurkan qaba aragtid inaad ka fogaatid oo 1 mitir ama 2 mitir camal ka hortagtid meel ku jirta ay istaagtid waxa kale oo hortagi kartaa cudurka inaad marka banaanka u baxsid ama meel aad u sheegsid in cudurka laga qabo inaad xiritid face mask inaad xiritid waxa kale oo hortagi kartaa gloves inaad xiritid iyo face mask marka waxyaabahaas aad sid gloves-kan aad iska bixisid weliba adoo iska taxadar leh oo iska bixisid suusan jeermiska jirka u soo gelin cudurkan daawadiisa weli ma soo bixin laakiin waxa qofka inuu naftiisa uu asaga uu la tacaalo iyo treatment uu isticmaalo sida qandho jabin iyo waxyaabahaas oo kalmaatiga inuu isticmaalo iyo inuu naftiisa keer gareeyo wax kale daawadiisa kale ma jirto waa mahadsantihiin videoga xiga noo balan insha Allah